ku dhufteen oo gudoomiye u yahay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle kuwaas oo golaha wasiirada hordhigay xaaladda degdega ah ee ka jirta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. dhanka kale wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ku baaqay in si degdeg ah gurmad biyo dhaamin ah loo gaarsiiyo gobolka Gedo. xasan cabdinuur cabdi ayaa warbaahinta qaranka la hadlay isagoona faahfaahin ka bixiyay arrintaasi. xaaladda biyari ee waddanka soo food saartay taasoo sababo la xiriira roobabkii dayrta sanadkii tegay oo aad u yaraa ayaa waxay sababtay in guud ahaan waddanka uu ka dhaco biyari iyo abaaro guud ahaan gobollada dalka wadadooda ay ugu horeyso gobollada sida maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. guud ahaan waxaa lagu qiyaasay dadka ilaanta ay hayso 1,100,000 oo qof waase kala daran yihiin. xaaladda emergency-ga ee hadda taagan waxay ka taagan tahay qaar ka mid ah guud ahaan gobolka Gedo magaalooyinkiisa dhan iyo qaar ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool. annagu waxaan abiil u dirnay warbixin iyo dheellaan u dirnay hay-adaha ka shaqayn jiray ama laga caawin jiray wasaarad ahaan biyaha oo ay ugu horeyso UNICEF iyo UNDP. ilaa hadda waxaa kasoo gaaray oo kasoo jawaabay keliya hay-adda UNICEF oo kasoo jawaabtay inay biyo siinayso 4 magaalo oo gobolka Gedo ah 5 kun oo qoys oo u dhiganta 30 kun oo qof. waxayna biyo dhaamin ka bilowday magaalooyinka Baardheere, Luuq, Buurruubo iyo Doolo. guud ahaan magaalooyinka hadda emergency-ga u baahan ee si degdeg ah loo qabto ay tahay waxaa انت كبها نلك كمان ماشي نلك kasoo baxay shirarkeenii anay shalayii maanta ee golaha wasiirada warbixintan aan idin siinay ee dadka lambarka biilaanta ama qoysaska biyaha u baahan waa warbixin soo ururiyeen wasaaradaha